السلام عليكم وعن صاحب شرفت له ما أنت وعن جعلستين إن يسود دوبا مقال كان صاحبيال سيدة الرئيس كساركتين بقى وحو كسابسيه أرين بريها دم بآد لو هذا الهيس لما كان آد لو بومبونين أرينتاس أو كسابسن دليل الصوماليات كسي قلقليا ودنك مروكو أيغو raadinayo hablo la sheegay inay aad u jaban yihiin isla markaana lacag aad u yar lagu guursan karo saaxiibayaal barnaamij arrimahaas ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah isla socod wanaagsan saaxiibayaal barnaamijkan ayaan waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa arrintan iyada ah ma arrin jirta oo sax ahba mise waa arrin la buunbuuninayo isla markaana aysan waxba ka jirin qodobka kalena wuxuu noqon doonaa hadiiba arrintan ay tahay arrin jirta oo sax ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka imaanaya wadamada Yurub ilaa maxaa la yiraahdaa Ameerika ilaa wadamadan Afrika ilaa waliba Soomaaliya maxadan ugu jirta inay wadan Islaameed oo ajnabi ah u dhoofaan isla markaana ay ka soo guursadaan bal marka hore aan ku bilowno arrintan iyada ah ma arrin jirtaba oo xaqiiqo ah mise waa arrin la buunbuuninayo isla markaana laga babadinayo aan isla daawano muuqaalkan marka hore Morocco waxa loo imaadaa guur waliba waxa uu imaadaa dadka muslimiinta warka maxaa ka jira aad iyo aad waa yimaadaan Soomaaliduna hadda ay aad ku soo bateen ilaa 2018 ay aad u soo bateen Soomaalidu iyagoo ka kala yimid Soomaali galbeed Kenya Middle East Europe ko ka yimaada dad badan baa ka aroosay saaxiibayaal sidaan rajaynayo intiina badan muuqaalkan hore waad u daawateen ninkan odaga ah lagu wareysanayo isla markaana uu kaga hadlay arrimo aad u fara badan oo ku saabsan Soomaalida ku nool wadanka Morocco iyo waliba dadka muslimiinta ah iyo Soomaalidaba oo guurka u doonanayo Morocco oo la sheegay inay joogaan hablo qurux badan isla markaana guurkoodu uu jaban yahay saaxiibayaal ninkan odaga ah marka wareysiga laga qaadayo waa muddo hadda bilooyin laga joogo hadaba su'aashu waxay tahay bariyahan dambe maxaa aad u soo kiciyay arrimahan isla markaana boorka dib uga jafay bal aan isla daawano muuqaalkan kale isagana gabadha waxay ku fiican tahay Marookaanka ah anigu Marookaan hadda ka imid waxaan joogaa xalay baan imid waxaan joogaa aflaatan saac waxaan ku yiri muxuu ahaa gabadha Marookaanka waxay ku fiican tahay xitaa marka dibadda jirtid gabar looma ogolo kaligeed inay deganaato dhaqankoodaba ma aha gabadha maalintaad ka soo tagtid reerkii baad ku sallimaysaa ay reerkaad ka soo qaadatay Soomaha reerkii baad ku sallimaysaa waa maqbiyo ma soo baxaan suuqa magaalada markaad maraysid way adag tahay gabar Marookaan ah mid xaafadaha aan deganayn oo raashin wax soo doontay ama dukaanka u socota ma arkaysid gabar Marookaan waa maqbiyo waa la ilaaliyaa gabdhooda sharaf bay leeyihiin hal sawir ma aqaan dhowr xabaa saddex xabaa camalanaya waxaan waayay gabar Marookaan oo aan sawiro you see Soomaaliya hadda tagtid xamar hadda tagtid meel kasta buuxda gabar Soomaaliya cararaysa suuqyada way joogaan iyagoo qaylnaya saaxiibayaal ninkan odaga ah waa ninka arrimahan dib boorka uga jafay isla markaana muuqaalada iyo arrimaha ku saabsan hablaha Marookaanka ah aad u buunbuuninaya isagoo live TikTok ka soo galay isla markaana muuqaal caadi ahba ku soo gudbiya baraha bulshada gaar ahaan TikTok hadda waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaar kamid ah hablaha Soomaaliyeed iyo bal ayagu waxa ay ka dhaheen arrintan hadda taagan annagoon marriin iyo cinaba mihir weydiinin Marookiya balaayad inta nagula meertaane miiraysi baan nagu disheen maalin iyo leeyli meel ka dhaca waxa noogu wacan muxibasiintii inaydan macaan doonan baan marag u haystaay meedhashiya waxa doonateen madaxiya feerfeere ma ateen gabdha baadartiin taala meelaha ay hadaydan midda tooba oran ma hadda weeyaan dagaal lagu ma dhaayna dhixyaal maanta dabadeed mincha baasta tiimilisatay dibirku ma weeli ariya isdaqaajiye dile waxay dheer Marookaan soconna Marookaan ma weedin baal anaga balkiis وين سلام فرح من جبال تو عربح مدة وحي هذا كده كسو جبجبيسي فرح من جبال تو عرب البحر بالمدة كلا أيضا عن داونا وحي تري أقوى علينا هاي نينا كوينا كات كذا أخي هذا كوينا بريالة
annaga noo soo jeesanine ragayga waa ka adagna hablaha Morocco mid baan u leenahay mid yala baan u sheegayna inamada yada haada sharafta leh hanaga aftuubanina waa ka adagnahay afarashana waa siinayna idinkana ku inaalaashada oo ka dhamaa ku mashquula kuwiina saaxiibyal sidaan dareemi karno hablaha Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ay uga caroodeen arrintan isla markaana waxa ay leeyihiin raggeena annaga ayaa heesanayna oo afar ilaa ka badan u guurinayna ee adinka hablaha Marookaanka ah raggeena ku mashquula saaxiibyal intaas kadib waxaan jeclaystay bal inaan aniga ahaan fikirkayga arrintan ku saabsan aan ka hadlo midda koowaad aniga ahaan maadaama aan kamid ahay bahda iskaabulada Soomaaliyeed ma laga yaabaa inaan u duulo dhawaan wadanka Morocco midda kalena waxay tahay tala guud oo aan sii lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyaga qulqulaya iyo qaarkoodba hadda boorsooyinka xidhay isla markaana doonaya bal inay baxaan saaxiibyal sidaan wada ognahayba inteena badan ama qurbaha dadka jooga ee ogyihiin waxa aad u soo badanaya waayihii dambe ama 12 sano ee ugu dambeysaba guurka Soomaalida ay guursanayso ajaanibta kale hadii ay halahayeen dumarka iyo waliba ragaba sidaan wada ognahayba ama diiniyan hadii qofka Soomaaliga ah ee muslimka ah guursanayo qof kale oo muslim ah meeshuu doonaba ha ka soo jeeday waa arrin banaan isla markaana wax dhibaato ah aysan ku jirin xagga diiniyan balse xagga dhaqanka ayaa qofka Soomaaliga wax uu kala kulmi karaa dhibaatooyin tusaale ahaan waxa laga yaabaa caruurtaas ay ku dhali doonto gabar aan Soomaali ahayn in bari ka maalin Soomaalinimadooda la dafiri doono isla markaana shaki la gelin doono maadaama aysan ku fududaan doonin inaan caruurtaada soo kaxaysato isla markaana wadanka aad geyso aniga ahaan taladan sii lahaa wiil walba ama qof walba oo Soomaali ah waxay tahay inuu guursado qof asaagiisa isla markaana Soomaali la ah taas ayna runtii Soomaalinimadiisa 100% ku noqon karta balse hadii aad guursato qof aan Soomaali ahayn taas micnaheedu waxay tahay caruurtaada 50% inay ahaan doonaan Soomaali bari ka maalina wadanka lala sheegan doono ama lagu qabsan doono ama shaki la gelin doono Soomaalinimadiisa halkaas ayaan saaxiibyal ku soo gabagabeynaya barnaamijkan